waxaa magaalada London lagu qabtay xaflad laga soo horjeedo dhibaatooyinka ay al-shabaab u geysanayaan shacabka ku nool gobolka Ceelbuur. haddaba waxaa magaalada London ka dhacday xaflad ay soo qabanqaabiyeen haweenka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Ceelbuur. xafladaas oo ka soo qayb galay dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London. dadweynaha Soomaaliyeed ayaa baaq u diray dowladda Soomaaliya inay u gargaarto dadka ka soo jeeda gobolka Ceelbuur. sidii la wada socono waxaa gobolka Ceelbuur ka dhacay dhibaatooyin aad u baaxad weyn. waxaa ka soo qaxay sida la wada socotaan dadweyne aad u tiro badan. waxaa lagu laayay dad Soomaaliyeed halkaas oo dhibaatooyin ba'an ay ka geysteen ururka kooxda al-Qaacidada ee al-Shabaab. haddaba dadkan Soomaaliyeed ayaa baaq u diray dowladda Soomaaliyeed inay u gargaarto dadka Soomaaliyeed ee lagu dhibaateynayo gobolka Ceelbuur iyagoo waliba ka codsaday inay dhan kasta ay u gargaaraan. waxaan horta marka koowaad aad iyo aad ugu mahadnaqayaa barnaamijkan quruxda badan gabdhihii soo qabanqaabiyey oo runtii isku mashquuliyey dadweynaha gobolkaas ku nool. waxaan ka codsanayaa inay u midoobaan oo si dhab ay ugu midoobaan oo ay mataqaanaa qofna qofka kale ku hadlaynin oo si dhab ugu midoobaan siday mataqaanaa ay nabadda gacmahooda ugu soo ceshan lahaayeen si kastoo xaalad tahayba. aad baan taas ugu codsanayaa. waa rajaynaa runtii in ay aaminsan yihiin gacantooda inay ku jirto nabadda oo cid kale gacanteeda ku jirin. marka waa inay u kacaan, waa inayna dhicin wixii dhacay oo dadka Soomaaliyeed mataqaanaa nugul oo haweenkii carruurta iyo waayeelka isugu jira oo la biraynaya sida xoolihii loo biraynay inayna dhicin. arrintaas waa inay ka qeyroodaan runtii. waa dhibaatana taabatay oo meel kasta qof kastoo Soomaaliya u joogaba taabanaysa. arrinta ayada waa in laga qeyroodaa, laga kacaa, laga midoobaa haddii ilaahay idmo sida halkaas ay u meel halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay barnaamijka aan caawa isugu imaanay taas oo ah dhibka maanta soo gaaray gobolka Ceelbuur iyo nawaaxigiisa iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ku hareeraysan. anagoo ah ummadda UK ee qurbo joogta ah waxaan jeclahay inaan baroordiiq ugu soo gudbiyo aniga oo ka soo jeeda deegaanka gobolka Ceelbuur iyo nawaaxigiisa. aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan sharafta leh oo ay soo agaasimeen gabdhaha jaaliyadda UK. waxaan uga xumahay aad iyo aad uga xumahay dhibaatadii ka dhacday Ceelbuur. waxaan beesha caalamka iyo inta wax garata iyo Soomaaliba aan ka codsanayaa inay u fidiyaan deeq walba oo xag bini'aadanimo ah, xag gacansiin ah, wax kasta ay ka geysan karaan. ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa looga baahan yahay inay iyagu gacan is siiyaan. gogosha ay walaalaheen ay degan oo ku saabsan waxa weeye waa arrin ku saabsan humanitarian iyo in codkeena oo midaysan aan u gudbino dowladdii iyo shacabkii gudaha Soomaaliyeed. runtii aanu rabnaa in dowlad Shariif oo madaxweynaha ka yahay Soomaaliya iyo Prime Minister Cabdiweli in ay runtii marka hore meelaha dhibaatooyinka ay ka jirto Soomaaliya ama hadda sida uu sheegay walaalkay gobashana halkan aan u fadhino dhibaatada ka dhacday gobolka Ceelbuur iyo degmooyinka nawaaxiga saameysay dhibka caamka oo maanta isugu nimid dareenkeena inaan ka muujino oo ah dadkii in ay jirtay dhibaato ka dhacday ay saameeyeen nimanka la yiraahdo al-Shabaab. in dowladda Sheekh Shariif iyo Prime Cabdiweli in ay always meelaha evacuate ay ka sameeyaan al-Shabaab ay ka baxaan in immediately in ay dowladda ku meel gaarka AMISOM iyo ciidamada ku meel gaarka dowladda inay u diraan si loo badbaadiyo shacabka. waxaan caawa halka isugu nimay dhibaatadii ka dhacday gobolka Ceelbuur iyo nawaaxigiisa. halkaas oo dhibaatada aad u xun ka dhacday. waxa isugu keenay halkan oo ah baroordiiq loo baroordiiqay dadkii shacabka ahaa oo lagu laayay degmada gobolka Ceelbuur iyo degmooyinka hoos yimaada. marka ka Soomaali ahaan anagu waxaan caawa halkan isugu nimay inaanu ka baroordiiqno oo aan dadkii Soomaalida shacabka ahaa wax soo qiimeyshaas inaanu ka baroordiiqno oo caawa aan u tacsiyeyno intii dhimatay inta nool aan maaragtay aan caawa halkan uga dirno baaq. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعيق وحوي زيتون صالح سياد وحن شيء قبل Ceelbuur macnaheegana waxaan rabaa halkan maanta inaan uga hadlayo maadaama aan gobolkaas
u dhashay dhibka la soo gaarsiiya waxaan ka codsanayaa inay dhibka dadka ka daayaan haday walaaluhu tashadin waxa u dambeynaya waxa maanta aan aragno walaalayaal haddaad tihiin dadkii u dhashay gobolka Ceelbuur iyo nawaaxigiisa midda ugu horeysa aad samaynaysiin waxay tihiin isku tashta islana tashta taas waxaad uga bixi kartiin dhibaatada maanta idinku jirto waxaan aad iyo aad uga xumahay dhibaatada maanta ka dhacaysa oo ah foolxumada lagu gowracay dhalinyarada ama haween ha noqdaan ama ha noqdaano aad baan uga marinaa raali ka dhaqmayno nin islaam oo muslim oo diinta ilaahay sheegtaana ama shaataana ogolan mahay waxaan ka xunnahay dadka la berbereynaya qof islaam ah sheeganayo ee Soomaali ah ee walaalkiisa kale islaamka ah ee aayad soo daliilinaysa in qof la bareemi jirto marka diinta islaamka inaan ummadda la nacsiin ummadda inaan la gowricin ummadda inaan la barakicin Soomaali maanta in naga hartaaba yarba maanta oo nabad iyo hiddiilo aan hiigsanayno islaan wadankiina caruurtiina waa ku laabanaysaan ma ay in maalin walba dhibaatada koow laga soo bilaabo dawladdeena ku meel gaarka waxaan ka codsanaynaa dadaalka ay wada waa ku mahadsanyihiin ilaahay la jir ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed garabkiina taaganay guuleysta meelo aan xoreyseen in la saaro ciidamo gooni ah qaasatan gobol kasta ama tuulo kasta ama magaalo kasta in la xoreeyo dadka jooga waxaan ka codsanaynaa in ay dawladda kabaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay xoojiyaan inay dhalinyarada ilaaliyaan ay difaacaan goobihii la qabto Ceelbuurna waxaan ilaahay uga baryaynaa nabadda inuu u soo celiyo walaalaheena waxaan ka codsanaynaa idinkan ummadda beeska ka daaya xaqa Allah idin fahansiiyo maxamuud maxamed xasan maxamuud buucame telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada London